dictatornimada iyo gacan adayga iyo kibirka iyo qofka ismooday inuu isagu umada ka sarreeyo xanuunka ay leedahay baa la soo arkay. Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo kamid ah garyaqaanada waaweyn ee Somaliland ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in Somaliland ka leexatay hanaankii sharciga lagu heshiiyay 1991 ee looga soo guuray nidaamkii kalitaliska ahaa dibna loogu noqday hanaankii qabaliga ahaa sidoo hadalka u dhigay. Garyaqaan Guuleed Dafac oo marti ku ah barnaamijka hagaha bulshada ee telefishinka CBA ayaa sheegay in dastuurka Somaliland ay ku qoran tahay in xisbiyada Somaliland aanay ku milmin qabiilka iyo gobolaysiga oo dhaliya kala qaybsanaanta bulshada. Waxaanu tusaale u soo qaatay murashaxiinta u tartamaya golayaasha dalka in lagu soo xulo hanaan qabaliya, taasina ay dhaawacayso dimuqraadiyadda Somaliland hadhowna uu tilmaamay inaan la xisaabtami karin. dadku waxay u socdeen dawladnimo dadku leeyahay dadka u talisa oo ummaduna siday kursiga ugu kala fadhiyaan inuu kala xoog weynay cadaalad iyo sinaan ay ku kala hesho. dastuurkana saasay ku qorteen araartiisa hadda akhri dastuurka dadka soo qoray waxa arabka ku adkeynaya nidaamka kaligitariska iyo sirxiriixa cawaaqibkiisa xun inta uu gaarsiisay. dastuurkii la sameeyay doorashooyin baa galay niyad samee baa lagu gaa. dastuurkii waxa lagu qortay xeerarkeena ku qoran in xisbiyada siyaasiga aan gobolaysi qabyaalad gelin. maxaa la diiday mar walba ka qaybsanaanta bulshada la diiday. xaraba bulshada inay isjeclaato isu soo oo qofku markuu madaxweyne yahay aan cadow arag adu aragtay qof kaamid ah oo walaalka oo talinaya isna aanu cadow ku arag oo arko walaalihiisii oo dalka la noolaa oo shaqo hayo ayaa la doonayay dadku saas u jeclaysta. maxaa dhacay markaa? wadadii baa laga leexday markaa dastuurka loo sameeyay. waxa la qaaday wada in la yiraahdo golihii deegaanka qofka tartamay jifa hebla xitaa qabiil ma sab kalankii qofka DBN group uu bixiyay aan blues jifadii maktabada bixinaysay kaliya inay wada yeelato qof xitaa kuwii isku reerka ahaa ay kala magtahaan xilibaan wada dooran karin been taqnay marka umadeeni rabtay dastuurka sameeyay wax wada yeelashada isjacaylka israbitaanka ya kala asqori joogay ka seelix jooga inay iska war hayaan oo is ogol yihiin oo ka seelix jooga u talin karo la asqori u talin karo seelix aan dadku istiidinay ayaa leeyahay xukuma dhaxayaan qolo waliba jifadaadii ayaad ku absanaysa. marka qofkii kalsoonidii dawladnimo marka way ugu qiimaysaa dimuqraadiyad ma noqonaysa kala qaybsanaan bay noqonaysaa. marka maxaa isku dhex dhafmay nidaamkii qabaliga haba siyaasadda soo galay. nidaamka qabaliga dadka kama suulin kartid xasiyaad buruuta way mana qasbi kartid qofka dur reernimo rabo dee ku ixtiraam reernimadiisa ceeb kuma jirto. dhinaca kale garyaqaan Dafac ayaa sheegay in hanaanka qabaliga meel xun gaadhay isla markaasna aaminaadii bulshada noqotay mid reero salka ku haysa. Guuleed ayaa sidoo kalena sheegay in xalka ugu dhow ee lagaga bixi karo qabiilka uu yahay in dawladdu bulshada dhadhan siiso wanaaga dawladnimo kana tagto ku dhaqanka hanaanka qabaliga sidoo hadalka u dhigay. bal hadda magaalada yaa ku maamulay hadda maayir buu ku noqonaya qofka magaalada reer soo dirsaday mise nin reer hebel waa ku xukumaya ilaan qofku dadku deedan fools dadku taqamo maaha ma qofku tartamayo way arkaan cuduu yahay qofkii reer bay dirtay buu ku leeyahay qofkii waa magaalo walba Hargeysa Burco Cergaabo meel walba kii reerku soo dirtay waa dhawle magaalada waxaan ka ahay maayir lacag siiyo deedna waa in yar ku soo dirto jiwan sita yaad siinaysaa lacagta dawlad weydiinaysaa su'aashaas. marka waxyaabahan anigu leeyahay dawladnimada in ka deeyno qabiilka waxa weeye jiritaankeena iyo xooggeena dawladnimo iyo perception ka ama aaminaada dadweynaha hagaagsanaataa waxay ku xiran tahay in state ku noqdo dadku kalka bulshadu aayar bay uga guuri doontaa mustaqbalka qabiilka oo dadka lagu ma qasbo waxa ay doonayeen oo dawladdu inta iyadu soo istaagto dadka inay tahay qabiilka ka tago uu la soo baxdo sax ma intay noqoto iyaga ka tagi doona. laakiin dawladnimada waa inaad dareentaa inaan reernimo shaqo ku lahayn waa inaad maayir ku reer kula noqonayn waa inaad gudoomiyaha baarlamaanka reer kula noqon waa inaad gurtuug kula waa inaad garsoor kula waa inaad wasiirku kula noqon. ugu dambeyn mudane Guuleed Dafac ayaa ka hadlay fahanka dimuqraadiyadda Somaliland oo qof kasta macna gaar ah u haysto. dimuqraadiga waxa weeyaan Greek baa laga keenay waa la Ingiriisi uu Carabi uu Soomaali khalkhal badan buu galay. dadku isku si xumada yaqaaneen ereyga qof walba wax laga yaabo inuu meel walba u la qaato waxa laga yaabo qof inuu soo istaago dimuqraadiga macnaheedu waxa weeye badil laamba oo diinta oo laakiin ereygu asrigiisu waxa weeye in dadku isku xukumo shacabku ee aan qof ama koox ama qoys oran aan idin taliya simple way intaas aragtay. marka waxa laga carayay nidaamka Sacuudiga oo kale haddaan dhinto inaan kayga caayeen ama sida Eritrea oo kale oo dayba iska kiin soo hortaagan hadaa hadashaan madax xaleen ka xukumay population ka xukumay sidee isku xukumayaan wax caalami oo universal oo la isla yaqaan ma jirto dalalku kala duwan Mareykanka Ingiriiska kala duwan sidee isku xukumaan dimuqraadiyaddu aan isku noocayn laakiin qiyaaska laga qaataa waxa weeye madama qof iyo koox ku amar ku taaglaysa mise awood bay leeyihiin waa bini'aadan aragtiyo caqli loo kala ma kala caqli badnaa. Xamse Xayd wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa. hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom